Ajay Devgan marwadiisa Kajal yaa hanti badan warbixin xiiso badan. Superstar-ka Ajay Devgan iyo marwadiisa la jecel yahay Kajal Devgan fanka Hindi maqaam sare ayay ka gaareen ku dhawaad 30 sano ayay ku jiraan. Waxayna ku guuleysteen bilado badan sidoo kale aflaantood inta badan waa kuwa u guusha u saaxiibka ah. Lamaanahan awoodda badan waxay is guursadeen sanadkii 1999kii. Waxaan u joogaan gabar lagu magacaabo Nayza iyo wiil la dhaho Yob. Waxayna si joogto ah kaga soo muuqdaan aflaanta Bollywoodka sidoo kalena waxay leeyihiin shirkad filimada maalgeliso. Haddaba waxaan idin haynaa warbixin ka hadlayso Kajal iyo saygeeda Ajay dakhliga soo galay hantida guud ay haystaan iyo macluumaad kale oo xiiso badan oo lamaanahan caanka ah u gaar ah iyo sidoo kale labadooda midkii dakhli badan ama hanti badan. Kajal aan ku horumarno Kajal Devgan dakhliga hantida ay haysato sida ay shirkadda caanka ah Forbes shaaca ka qaaday. Kajal Devgan waxay kasbatay 18 karoor u dhiganto 2.40 milyan oo doolarka Mareykanka ah sida sanadkii hore ay lacagtan soo gashay. Wuxuuna dakhligan ka soo galay filimada ay sameysay iyo xayeysiimaha kala duwan oo ay ka soo muuqatay. Hantida guud Kajal ay haysato waxaa lagu sheegay inay tahay 125 karoor lacagtaas u dhiganto 16 milyan doolarka Mareykanka ah. Ajay Devgan dakhligiisa hantidiisa uu haysto sida ay shaaca ka qaaday shirkadda Forbes sanadkii hore. Ajay Devgan dakhli ahaan waxaa soo galay 120 karoor u dhiganto 15 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Wuxuuna dakhligan adag ka kasbaday dhanka filim samaynta, maalgelinta iyo xayeysiimaha kala duwan uu sameeyay una dheer tahay hantida guud uu Ajay Devgan haysto sida diiwaan gashan sanadkan 2020 waxaa lagu sheegay inay tahay 380 karoor lacagtaas u dhiganto 50 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Hantidan ay haystaan Kajal iyo saygeeda Ajay Devgan lamaanahan caanka sidoo kale awoodda badan wadar ahaan hantidooda waxay gaaraysaa 500 oo karoor lacagtaas u dhiganta 66 milyan oo doolarka Mareykanka ah. Waxaan lagu tilmaamaa inay ka mid yihiin kuwa ugu caansan uguna taariikhsan Bollywoodka ee nolol dhab ah ka dhaxayso.